waa toddobaadkii labaad oo magaaladan Garowe ay si xawli uga socdaan howlgalka ku soo celinta hantida dadweynaha gacanta dawladda. Waxaan se shaki ku jirin in howlgalkani walwal iyo walaac uu ku abuuray dadka lagu amray in ay si kama dambaysa uga guuraan dhismayaashii ay muddo sanooyin ku ganacsanayeen. balse waxaa jira qaar fara badan oo iyagu aaminsan in danta guud laga hormariyo danta gaarka ah, taasina ay tahay sababta ay ku aqbaleen in ay qaataan amarka dawladda isla markaasina ay hantidooda kala baxaan dhismayaashii ay ka dhisteen dhulka ay lahayd dawladdu. in sharciga la raaco qof walba dani u jirta waa ummadan waxa iskala dawlad marka dawladda xoolaheedana iyadoo madaxda gaajinaysa insha Allah adiga maxaa kugu dhiirigelinaya inaad aqbalaadan iyo wanaaggan aad macnaheedu aad u arkaan waxa igu dhiirigelinaya danteeda ku jirta danta mustaqbalkayga ku jirta in dawladda loo qaayo in dawladda kaliya ma aha in la xataa magaalada in magaala caasimadii weeye caasimadda bilicdeedan madan ugu jirta marka caasimad in lagu soo yirto lamaal aan qorsana laamiyada anaga dan ugu jirta kulli dabaq laga wado magaalada la hagaajiyo. qorshaha caynkani oo kala ah ayaa muddooyin kala duwan waxa laga hirgeliyay magaaladan Garowe, taasina waa takaliftay in dadka Garowe degan ay la qabsadaan go'aamada noocan oo kala ah xitaa haday yihiin kuwa noloshooda saameyn ku yeelanaysa. dadka arrimahaasi u ololeeya waxaa ka mid ah wasiir hore Cabdiwali Xirsi oo ka mid ahaa dadkii taageeray go'aankan. waxaan weydiiyay sababaha uu haatan ku taageeray go'aankan iyo sida ay uga fikireen dadka laga saarayo guryahan noloshoodu waxay noqon doonto. waxaan ku taageeray marka in barnaamijkaasi runtii dawladdu hesho meel ay ku shaqayso, meel ay ku fido, meel ay runtii ay bulshada ku shaqayso. sababtoo anaga waxaad ogtahay mar haddii magaalada weynaanayso meel xanaan oo runtii meel ilmuhu ku ciyaaraan male baakaga runtii baakanadii baa soo yaraaday, dakhli soo saarkii baa dawladda hoos ku yaraaday. sababtoo caasimadu waxay dakhliga inta badan ku heshaa waa waxa taxationka waxaa kasii muhiimsan haddii joogtaa inay leedahay oo maguuraana dawladda hoose ku shaqayso. waxaa keliya samaysaa waa saboortiga caasimada ee dawladda ka hesho waxyaalaha kamidda la yidhaahdo iyadiina runtii dhaqaale darra awgeed u soo bixinaan. marka barnaamijkan waxaan ku taageeray shirkii u dambeeyay hadda ka dhacay iyo xogo badan oo bulshay inay dadku diyaar u yihiin in caasimadda runtii caasimad laga dhigo wax dhibaato ma jira. arrinta kale labaad waxay tahay culimada meesha waa ka hadashay maxamed Allah khayrsi baa ka hadlay xogo badan oo sheegay waxa la sheegay dhulka waa waqaf dhul waqafna qofka shaqaysan waxaa la cadeeyay kan dhistay iyo kan kireystay iyo kan isagoo dhistay weliba degan intuu inay xaarayn ay ka soo baxay oo ka xajii karin ilmihiisa iskuulka geysan karin ka ganacsan marka wax xaaraana hadduu aqoon darasho u geysto isagaa loo nasteexiyay loo sheegay in waxa xaaraanta waqafta masaajidka ma hadii kireysay kara waa may waqafku ka mid soddon sano ayaa ka soo wareegtay markii dawladda hoose ee magaalada Garowe ay gacanta ku haysay dhulkan. soddon sano kadib ayay noqonaysaa mar kale inay dawladdu maamusho. dadkii ku qasbanayay xarumahan dareen kasta ha qaataan laakiin waxay aqbaleen go'aanka ka soo baxay dawladda. su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay sidee ayay xukuumaddu ama dawladda hoose ee Garowe uga faa'iideyn doontaa dhulkan. su-aashaasi ayaan waxaan weydiiyey duqa degmada magaalada Garowe Axmed Barre isagoo ku sugan xafiiskiisa magaalada Garowe. anaga qorshahaygu ma aha intaan hantida qof ka qaadno inaan qof ku wareejino. ujeedadaydu waxay tahay in hantidii dawladda ay dawladdu gacanta ku soo ceshato, kadibna waxay dawladdu ay u talagashay adeegga dadka loogu qaban lahaa lagu qabto. baahi weyn su-aal weyn baa waxay ka taagan tahay arrinta dhulka bannaan oo maanta dawladdii hoose ee Garowe madaxda ka tahay aysan awood u lahayn inay bixiso dhul ay siiso sababtuna ay tahay inaysan gacanta u bahayn. kaa maxaa laga yeelayaa? taa waxaa laga yeelayaa xilli buu ahaa xilli aan hadda ka wadaanan awoodin inaanu hantida dawladda soo celino baa jirtay. hantida dawladda noqon bayna ka mid tahay dhulka bannaan insha Allah tacaala wuxuu ka mid noqonayaa hantida dawladda waa la soo celinayaa. dad baa xajisay ama xanibtay oo hadda gacanta ku hayay. dadkaasi markii Tombolanku maro boqolkiiba 30 waxaa laga goynayaa danta guuda, boqolkiiba 70 ka soo harta waxaa laga rabaa qofku inuu canshuurto xilliga loo qabtayna uu ku dhisan karo. haddii ay intaas suurto weydana dib baa looga noqonaya.
ugu dambeyntii duqa degmada magaalada Garowe waxa uu ii sheegay in warwarka ugu faraha badan ee ay qabaan uu yahay kan dhaqaalaha, sababtuna ay tahay howlgallada noocan oo kale ah inay u baahan yihiin dhaqaale aad u fara badan, degmaduna aysan awoodin in dhaqaalahaasi ay hesho maadaama ilaa iyo haatan aysan suuragelin inaan laga helin dowladda dhexe qoondaynta miisaaniyadda looga sameeyey caasimadda. Faysal Khaliif, Somali News, Garowe.